بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimo badan oo nagu soo noqday oo ashtaka badan ama dacwo badan noogu timid dhinaca awood qaybsiga hadii la fiiriyo xafiisyada kala duwan saa ka warqabtid laga soo bilaabo xilligii Cabdi Qaasim ilaa aad ka iimaanaysa Xasan Sheekh waxaad u maleynaysaa awood qaybsiga si sax in wax loo wada qaadanayo wixii lagu heshiin waxay ahayd shanta beelood ahayd 4.5 ani ma dhihi kari shantaas beelood si cadaalad ay wax u wada qaadanayaan laakiin xukuumadan hadda joogto waxa dareemaysaa in xadgudub badan uu jiro ha ahaada dhinaca arrimaha dibadda ha ahaada dhinaca ciidamada oo kala duwan waxa ka warqabtaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 18 hoggaan uu leeyahay sida loo qaybsaday hoggaanada mas'uuliyiintoodu waa dareemi kartaa waxa kaloo jira dhinaca dalacsiinta maalin walba dad baa la dalacsiyaa dad beelo gaar ah la dalacsiyaa beelo gaarna waa laga tagaa waxa dareemaysaa in maxal lahay awood qaybsigii taliyaashii ciidanka hadda annaga haddaan koonfur galbeed aan nahay waxaan xaq u lahayn oo awal u hayay xilka taliyaha nabad sugidda wuxuu ahaa nin deegaanadan koonfur galbeed ka soo jeedo ninkii hadduu is casilay booskii hal sana la iska haysta hadda cid haysatana waa dareemi kartaa cid haysa waxa waaye booskan xaq u lahayn waa la magacaabi waayay ilaa ay hadda maxaa loo magacaabi waayay tusaale ahaan hadda hoggaankaas nabad sugidda 6 hoggaan ka jirto 6 hoggaan awood qaybsi maaha waa beelo gaar ah u badan beelo gaarna maba ku jiraan waaxiyadoodana sidaas oo kale waa ciidamada saas oo kale ciidamadii awal ka shaqeyn jiray maxaa la lahay ma joogaan waxa loo yimid ciidamadaas qaar ka mid ah hayeen dhinacan booliiska ahna waxa way dadka qaar kood ayagoo cabashay noogu yimaadaan annaga xafiisadeen markaan dawladii haday maxaa la lahay ay gacan bidixaynayso deegaano qaar kood waxa waa annaga xadgudubkaas inuu sii socdo waxa waaye mid aan annaga raali ka nahay maaha waxa waaye waa inaan ka tashanaa aayaheena dambe waxyaalaha sababay in dawlad goboleedyada qaar kood ay dhahaan waa goosanayna waxa kamid ah taas oo kala kamid ah hadii meeshii wixii lagu heshiiyay qodobka dastuurka qodobka koowaad ilaa qodobka 143 waxa u maleynaysaa 90% in aan haba yaraatee wixii lagu heshiiyay aan la fulinayn dhibaatooyinkaas jiro waxa kaloo jiro saad ka warqabtay caasimadda Muqdisho waxa waaye caasimadii Soomaaliya waaye markaan caasimadii Soomaaliya 17 degmo 17 degmo waaye 17dooda degmo saa ka warqabtid maamulada Soomaaliya qabaa'ilada degan waxa ka maqan hal deegaan ka maqan deegaankan koonfur galbeed dadkoodii waxay xaq u leeyihiin Muqdisho kala baro bar meehe 3 meelood 2 meel ayaga degan hal degmana lagama seenin waxa dareemaysaa annaga hadii aad fiiriso koonfur galbeed maamulka ku dhisan oo hadda maamulkii ka horeeyay oo Shariif Xasan waxa way Soomaaliya inay u wada dhanyihiin marka Soomaalida waxaan la yaabsanahay sababtay annaga gacanta bidix ay nooga qabanayso waa dareemaynaa in cunsuriyad xun ay jirto meeshii aan la rabin dadkan maxaa la lahay in wax loo qabto waxa way hadda ugu dambeysay 11 qof la dalacsiyay oo booliiska waxa waaye hal qof kuma jiro dadka deegaanadaas ka soo jeedo waana booliiskii Soomaaliya la dalacsiyay saas oo kale ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya maalin walba dad baa la dalacsiyaa markan tusaale ahaan hadda waxaan ku sheegaa maamul goboleedyada Soomaaliya 42 milyan oo dollar midowga Yurub ugu deeqay deegaanada qaar kood waxa waaye kulli waa la wada siiyay maamul goboleedyada dhan laakiin deegaankii koonfur galbeed waa laga tagay madaxda Soomaaliya waa dareemaysaa meelaha ay tagayaan ma tagaan hadda gobolkan Bakool oo ah gobolka kaliya ee baabacsan gobol ahaan Soomaaliya hadii la fiiriyo waana ciidanka ugu tiro badan meesha joogaan waa dadka kaliya oo maxaa la lahay difaacday deegaankooda waa ma haystaan hal Cabdi Bila ma haystaan saas oo kale qaybta lixnaad bay noo 2 Cabdi Bila 3 Cabdi Bila haystaan maamul goboleedyada kale waxa la siiyay hub aan la qiyaasi karin oo arkaysa maalin walba dekedaha laga dejinayo war waxa la rabaa miya hadana deegaanadeen in lagu soo duulo hubkaas waxa dadka loo siinayo saas miya annaga meesha dawlad kuma aragno dawladii maalinta ka dambayso madaxdii Soomaaliya xataa waxa arkaysaa inay muddooyin dhowr bilood ah ay aadayaan gobolada qaar kood ay ku nagaanayaan laakiin goboladaas oo Bakool iyo gobolada Baydhabo haba yaraatee maxaa la lahay waxa ka jira oo xaqiiqda ah maxaa la in la arko ma la rabo markaan waxaan ka soo horjeednaa maamulkan oo dawladda dhexe dadka mas'uuliyiinta ugu sareysa oo xadgudubka ku sameynaya maxaa la lahay dadka deegaankaas oo koonfur galbeed degan oo ah maamulka kaliya
Soomaalidan aad ka dhex arki kartid waxa waaye annagana xadgudubaan nagu sameeynaa maalin walba xilkii annaga aan lahayn hal sana taliyii nabad sugidda alla magacaabi waayo sababta loo magacaabi waayo qof walba waa dareemi karaa waxa waaye dhowr jeer aan ka cabanay safaaradihii dibadda saas oo kale awood qaybsi maaha ha ahaadaan safiiradii qunsuladii xogayii joogtadii ha ahaadaan maxaa la lahay dhinaca ganacsiga maxaa la lahay dhinaca maxaa la religion attachee ha ahaado wax walba oo qushay shaqaalaha safaarad kasta oo qusay haba yaraatee dadka aan ku jirnaan nahay marka hadda waxay ka dambeeyay aniga meeshan marko inay dawlad jirto waxaan rabnaa aayeen inaan ka tashano dhammaan bulshada reer Baydhabo oo hadda ay tahay caasimadii waxaan rabnaa maxaa la lahayay iyo maxaa la lahayay goboladii kale ee koonfur galbeedba in arimahaas shirar degdeg ah lagu qabto magaaladaas Baydhabo la isugu yimaado maxaa noo dan ah maxaa la lahayay mustaqbalkeena aan la hiigsanayn aan fiirno waa maamulka kaliya oo soo jiray laga soo bilaabo xilliga Cabdiqaasim ilaa Xasan Shaqaaqi imaanaysid oo xuquuqdan inkiray maamulkan hadda jiro oo madaxweynuhu yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markaan waxaan rabnaa annaga Soomaalinimo waa rabnaa laakiin dalan Soomaalinimada diidan ayaa jiro oo maxaa la lahayay dadna maxaa la lahayay iska dheeraynay dadna maxaa la lahayay barnaamijyadii mashaariic badan siinay waxa waaye waa qalad in maamul goboleedyada dhan loo qaybiyo 42 milyan maamul goboleedka koonfur galbeedna loo diido waa qalad in maxaa la lahayay xubnihii awood qaybsigii wixii xaq aan u lahayn noo diido ay dadna ay awood qaybsigii annaga aan lahayn xaqeeni ay ku darsadaan markaan wax aan fiirsan karno male waa naga soo dhamaatay aniga meeshan kuma arkaayo wax dawladda waxa waaye waxaan u sheegaynaa beesha caalamka ah in xadgudub badan oo maamul xumo ah uu ka jiro maxaa la lahayay waddanka Soomaaliya taasoo ay sameynayaan madaxda hadda ugu sareyso waqtigan asagaaba iska dhamaanooyay waxaan rabnaa inuu ilaahay nagu soo celiyo mar rabno dadkan hadda oo xilka noo hayo waa dadkii Soomaali kala geeyay waay maxaa la lahayay intay Soomaali isu keeni lahaayeen ayay waxa way xadgudub badan ay nagu sameeyaan saas daraadeed xildhibaanada federaalka anaga ah oo dawladda dhexe matalay waxaan idin ka codsanaynaa in aan midoowno hal meel aan ka soo wada jeesano arintaana maxaa la lahayay tallaabo cad laga qaado laga bilaabo maalmaha soo socdo sidaan Baydhabo ku tagi lahayd barkee wax lagu ogol yahay haba yaraatee male. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.